waxaan falaqeen aad iyo aad ku sameyn doonaa oo heystii laga daba dhacay ee abwaan Cabdishakuur Madow oo abwaankaas oo heystaas oo isbuucii noqotay isbuucii heystii ugu saameynta badnaa oo heystaas ay isku qabsadeen laba fanaan oo baraha bulshada aad iyo aad saameyn badan ku leh marka waxaan aad iyo aad u falaqeyn doonaa ama falaqeyn fara badan ka sameyn doonaa labada fanaan oo heystaas isku qabatay oo labadaas fanaan ah Guulaysimba iyo Khalid Kaamil aan falaqeyn ka sameyn doonaa fadlan marka dan waa subtaana subscribe iska saaro si muuqaal walba aan soo dhigno ku soo gaaro muuqaalka noo la garay aad ba maasantiin marka daawadayaal fara badan ama dad fara badan oo ku xiran dhanka social media ayaa qof walba si uu macnaysatay marka xaqiiqda ama si dhabta loo hadlo ama heesta waxa ku horeeyay ama si ahaan cod ahaan u soo galshay Khalid Kaamil marka qoraal ahaan ama cod ahaan loo soo galiyay heestan marka hore marka abwaanka kuma qanacin sida uu Khalid Kaamil oo heesta si laga rabay ama sida laga rabay moona yeelin sababta heesta waxa la rabay inuu muuqaal ku soo duubo ama muuqaal ahaan u soo sameeyo marka Khalid Kaamil moona sameeynin marka dad Khalid Kaamil u dhow ama xoog far badan siiyeen waxay dhaheen in uu markii fanaanka loo dhiibay heestan ama heestan cod ahaan u duubay in uu baarkii oo ka gaabiyay xuna ku soo aadalay waqti oo aadi si xanuunsanaa heesta ku soo aaday heesta marka wuxuu si ahaan u soo galshay cod ahaan leeris ahaan waa loo soo galay YouTube-ka marka abwaankuna kuma qancinaa la yiri marka arintaasna kumona farxiin abwaanka marka abwaankuna wuxuu rabay inuu video loo soo sameeyo sababtay tahay si wuxuu galshay juhdi waqti buu galshay isna marka taasna moona sameeynin Khalid Kaamil fanaanka marka waxa marka dibka ama faraha ama cilada waxa keenay waxyaabaas ay kamid ahaayeen oo heesti ma noqon markaas hees qaraxda ama hees oo suuqa gasho marka Guulaysimba ay lagu wareejiyay la yiri marka abwaanka ku wareejiyay marka abwaanka ku wareejiyay Guulaysimba uu ka baxsaday oo si wuxuu soo galiyay automatic oo muuqaal ahaan u soo duubay dhanka codka dhanka laxanka meel walba si kal ilaaba ayuu muuqaalkii u soo sameeyay muuqaalada heesta marka muuqaalkiina waxay noqotay hees aad iyo aad u qaraxdo oo dad fara badan ama bulsho fara badan ay daawatay ay noqotay marka waa one week waxa fiirsatay heestaas waa milyan fiirsatay markii saasi u qaraxday heestii hadalay waa heestu marka laakiin marka hore waqtiga hore waxa ku horeeyay si aan horena ku soo sheegay Khalid Kaamil laakiin qoraal ahaan u soo galshay markii labada fanaan dagaalkooda ama ciladooda meesha ayuu ka bilowday marka waxaan dhihi karnaa boqolkiiba boqol waan dhihi karnaa waxa ka gaabiyay heesta Khalid Kaamil soo awgooda ama si uu siga sheegay ama soo dadka ka agdhow ay sheegayaan marka waa laakiin boqolkiiba boqol abwaanku ku qancay sid oo Guulaysimba oo yeelay ama sidoo Guulaysimba muuqaalku uu sameeyay ama hees u kala kacday sababta tahay abwaanku muhiimadiis waxa waaye in heesta kala kacdo sababta tahay juhdi buu galshay marka Khalid Kaamil soo gaabshay marka sababahaas waa sabab isku dhacay labada fanaan ee Khalid Kaamil iyo Guulaysimba marka warbixinto dhameystiran intaas waaye waa ku maasantiin daawashada muuqaalkan fadlan subtaana subscribe iska saar video like garay si muuqaal walba aan soo galno oo ku soo gaaro next video bye bye